madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu kulan gaar ah kula qaatay gudoomiyaasha golaha baarlamaanka Soomaaliland gaar ahaan golaha goortida iyo wakiilada iyo labada gudoomiye xisbi mucaarad ee Soomaaliland kulankaasi uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu la qaatay mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka ayaa waxa lagaga wada hadlay diiradana lagu saaray muddadii uu socday sidii tala qaran oo midaysan looga yeelan lahaa arrimaha ku soo kordhay geeska Afrika maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu uga warramay isla markaana uu mas'uuliyiintaasi uu ku adkeeyay sidii dhinacooda ay uga qayb qaadan lahaayeen isla markaana meel looga soo wada jeedi lahaa ilaalinta iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu kala hadlay mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka ee uu la kulmay gaar ahaan gudoomiyaha golaha goortida gudoomiyaha golaha wakiilada iyo gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani iyo u ciiday sidii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland uu tala midaysan oo qaran uga yeelan lahaa cadow kasta oo ku soo duula qaranka Soomaaliland isla markaana ay shacabka Soomaaliland ay meel uga soo wada jeedi lahaayeen wax kasta oo lagu wiiqayo qarannimada Soomaaliland waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku adkeeyay mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka in doorkooda ay ka ciyaaraan sidii ay u muujin lahaayeen ilaalinta qarannimada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa hore waxa uu cadeeyay sida ay uga go'an tahay ilaalinta iyo qarannimada Soomaaliland xukuumadda uu hogaamiyo waxaanu maalmihii u dambeeyay uu fariimihii ugu adkaa u diray maamulka Muqdisho ka taliya waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu mas'uuliyiintaasi golayaasha qaranka ee uu la kulmay uu ku adkeeyay in iyaguna ay sidaasi oo kale ay doorkooda uga ciyaaraan cadow kasta oo ku soo duula Soomaaliland ma aha kulankii ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland uu la qaato madaxda gudoomiyaasha golaha goortida iyo wakiilada iyo waliba labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland kanina waxa uu ka mid yahay kulamada lagu dardargelinayo isku duubnida iyo wadajirka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaanba أحمد ساكي داير حسن وارباهين تا قرنك Soomaaliland gudaha qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa